marka page-keeni qaabkaasna wuxuu uga bedelay website-keeni hadda way noo dhameystiran yahay wax walba waynu ka bedelanay wax walba oo inagu saabsan waynu ka bedelanay hadii header-kii ahaan lahayd hadii menu-gii ahaan lahayd hadii kalaradii ahaan lahayd hadii ahaan lahayd logo-dii aynu soo gashanay hadii ahaan lahayd footer-kii oo iyadana iska hagaajinay oo aan copyright-keeni iska saarnay keeni ka dhiganay qaybtan soo gashanay footer-ka xogtan home-ka aynu ka bedelanay oo xog qurux badan oo design-keeni hore aynu soo dooranay aynu sawiradeeni iyo nashqadeeni aynu ka bedelanay website-kan hadda website la isticmaali karo way agency ahaan loo isticmaali karo qaybta adeegyada iyo kuwan adeegyadii baynu gashanay meelaheena kala soo xiriir lahaa qofkii adeeg markuu soo dalbado ku soo dhufan lahaa adeegyada aynu qabano qiimahooda ugu hooseeya qiimahooda u sareeya saddexda adeeg u kala baxaan dadka in la shaqeeyo logooyinkoodii halkan aynu soo gelinay marka intaas default-ga ma ahan kan oo kale aynu soo gelinay marka hadii uu haysan lahayn waynu soo gelin lahayn hadda ka kaliya ka haya wax looga ah marka saas oo kale aynu soo gelinaynaa ku saabsan baynu bedelay oo page-ku ku saabsan marka xog fiican oo website-keena ku saabsan ama shirkadeena ku saabsan baynu ku qornay blog-gii oo inoo diyaarsan yahay oo blog-yada dad markay soo boqdaan blog galaan xog fiican bay ka helayaan sida website loo sameeyo sida muuqaalo loo sameeyo sida logo-yinka loo sameeyo hadhowdii marka waxa kale oo aynu sameynay page-kiina kala soo xiriir ahaa marka website-ku wuu dhameystiran yahay already 99% wax ka maqan ma lahan website la isticmaali karo weeye laga dhigi karo online laga dhigi karo marka waxaanu sameynaynaa marka casharada ku xiga waxaanu ku qaadanaynaa qaabka website-kan online looga dhigo hosting-ka loo sameeyo blogging-ka ay raahdeen domain name-kana loo doorto oo qaab online ah dadka dhan adduunka daafaha kala jooga oo internet haysta ay isticmaali karaan qaabka u heli lahaayeen access u heli lahaayeen baynu ku qaadanaynaa insha Allah waxaan filayaa marka cashirkeena in la fahmay intaas uu nagu ogyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala.